السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقائق ميل كستو جوجتان waxaan idin rajeynaa inaad caafimaad qabtaan. alxamdulillahi rabbil caalamiin. anagu sidoo kale waa caafimaad qabnaa barwaaqiyo bashbash waa mar kale iska soo noqosho wanaagsan channelka iga daawanaysan waa Faadimo Filsan qofka idin la hadlada waano Faadimo Filsan soo dhawaada ayaan ilaahay waa gabadhiini idinkuna waxaad tihiin may dadkaygi maanta waxaan rabaa inaan idin ka sheekeeyo qiso yar baan rabaa inaan idin ka sheekeeyo sheekadaas waa sheeko yaro horta aniga waa iga yaabisay sheekadaas rabaa inaan idin ka sheekeeyo sheekadan waxaa ka sheekaysa gabadh Carab ah gabadhaas waxay tiri cunugayga koobaad ayaa waxaan ku dhalay guriga hooyaday dabcan iyadii hooyadeed isku magaalo ayay deganaayeen deetana waxay tiri 40kii markaan ka baxay buu ninkayga imaaday wuxuu dhahay tiri soo bax gurigeena ayaan aadaynaa haye ayaan dhahay waxay tiri ani cunugayga waan soo diyaarinay deetana asxaabtaydii iyo walaalada iyo waxay dhahan bay tiri maad cabaar nala joogtid xoogaa maad nala joogtid haye baan dhibay tiri waa diinka dib ugu noqday waxaan idhi walaalow anigu 2 isbuuc camal baa xaafadda hooyadii sii joogaya haye u dhahay dhibaato ma lahaan haye 2 isbuuc waxay tiri noo dhamaatay haddana wuu imaaday wuxuu dhahay soo baxa guriga ay idin geynayaa haye ayaan dhahnay tiri marka waxay tiri anaga waxaan deganahay guri weyn oo kor iyo hoos ah guriga oo halka dabaq oo aday hal family degi karaan oo gurigaas kor iyo hoos maxaa la dhahaa aniga guriga kor iyo hoosta uma u garanaya horta magac kale uma aqaani laakiin gurigaas oo kale laba cid camal oo kala degi kartaa qayb dadka xaafadna hoos ay degi karaan xaafadna kor ay degi karaan hal cidna way iska deganaan kartaa gurigaas oo kale aan deganeen bay maadaama guri weyn ahaa marka waxay tahay qaybta hoose ayaan deganeen qaybta kore way iska xidhnaan jirteen waxay markaan soo tagnay ayaan waxba waridin ku daalinayna marka waxay soo tagnay oo waxay tiri marayno guriga nagiina aan ka soo tagnay guriga hooyada cabaar ka soo tagnay guriga yagiina aan wali gaadhin buu gaadhigi waxay meel joojiyay waxay tiri markuu gaadhigi meel joojiyay buu tiri buu yiri soo dhawow hadee wax baan rabaa inaan kuu sheego arrin baan rabaa inaan kaala hadlo haye waxaan rabaa inaan kuu sheego horta maalintii kow aan ku soo raadiyeen ku iri soo bax guriga aadaysaane soo adigu ma aad diidin buu yiri haa baan dhibay tiri dee xabiibti gabadh baan guursaday qaybta korona waan dejiyay marka hadda 2 option mid un baa kuu bannaan inaad gurigaaga aado ood raacdo gurigaaga ku geeyo ama inaan guriga hooyada kugu celiyo waxay tiri horta hadalka markii la ii sheegay naxdin lama dhahe haq baa dhibay tiri zaaid baa u naxay aan naxay waxay tiri waa aamusay markaan aamusay xita cabaar baan fakiray oo keligay aniga ana waxay tiri nafsad ahaantaydi baa isla hadla markaas waxaan isbay hadda cunug dhashay cunugaagi koobaad le waaye hadda hadduu isaga naag aroosay dhaqsaha maan gurigaaga naag u duduminee bal iska dhaafo gurigaaga iska aad gurigayga igee baa dhibay hayuu dhahay guriga buu igeeyay guriga waxay tiri markaan tagnay cunugii iska dhigtay guriga aan tagnay cabaar wax yar nala joogay kor ayuu aaday kor waxay tiri haba aaday guriyaha waad aragtay cidda ka koreyso kale qolka kugu aadan haddii wax dhulka lagu dhufto kale haddii sariir la jiido kale haddii qub wax dhulka ku dhacaan kale shaqada waa la maqlaa moogta waxay tiri kaba dheer baan maqlaa qub yaa cajiib anigu waxay tahay xanaaq lamaba dhahe nafta inay iga dhacdo wax yar u jira waxay tiri waa isla hadlay waxa isbay tiri naagtan gurigeeda ida joogta kabaha dheer xiran labisan un maxay ahayd waxay la labisantaa cabaar hadduu maqnaa waxay tiri habeenkii adigu oo waxay tiri xoogaa adigu fiidkii waqtigii fiidkii hurdo la gaadhay uu iska soo baxay uu noo imaaday waxay tiri waa iska joognay qubti ma badaysaa waxaan ibay tiri naagta ma nasata miya gurigeeda ma seexata miya ani waxay tiri qubta aan baba ka qaraacmay 3 maalin waxay tiri markay uu naagti kabaha dheer halka qubta ka hayso aniguna aan qaracan ahay buuyay maalintii dambe waa ku soo baraya gabadha waxay marka jaran jartaan istaaga waxaas dhaayt ma u tagtaa haddana waa isa soo celiya waxay tiri jaran jarta is yara ag istaaga bal maxay ku hadlayeen soo dhageysataa waxay tiri haddana waa is celiya waxaas dhaayt iska dhaaf gurigayga aan dib isaga noqdaa 3 maalin aad cala kulli xal markay ka soo wareegtay buuyay way tiri soo bax aan ku soo baraya gabadha waan ku barayaa markaas waxay tiri anigii xanaaqay oo qayliyo oo dhibay maxaa ii bare maxaa iga galay
aniga hadda cunug dhalay aniga waa lay nacay maxaa iga galay socaan ku way tiri maya dhib ma leh wuxuu yidhi gabadhu kor bay degan tahay soo bax saddexdii beri waxay tiri anigii afaare aan laygu aqooninaa bilaabay tiri labis iyo waxay tiri khatar iska dhig waxay tiri naagtan kabaha dheereer guriga ku dhex labisan ama labiska ka bareejee haddii waxay tiri naagtaa lagu soo biri weelkii lagu dhahay waa labisanaa ma ahee tob baa u labistay si cajiib ah waxay u labistay waa isa soo diyaariyay cunugiina waan seexiyey deetana waxay kabihii dheerdheeraana jag ayaan isku siiyey ninkii waxay tasaawan buu ii fiiriyee suuq uma soconuu dhahe gabadha lee ku soo bari rabaaye maxaa khaldan markaas ani wayta maxaa kaa gelay labiskayga soo bax waxay tiri haye waan dhaqaaqnay jaranjarti markaasaa lugta u saaray horta tartiiban u suuxay dhahda waaba wareeray markaasuu dhahay maxaa kugu dhacay garabku i qabtay waxay tii i waday albaab kaaga daran waxay tii guriga furihiisa isagaa wata guriga albaabkiisa marka waxay tii saa u istaagnaan buu guriga furaha ku rogay dhulka baan kasoo gacay tiri geb indhihii baaba idamay tiri hadda indhihii mugdi waxay tiri waa ka xilligii i qabtay i qaaday anigii waxay tiri meeshii iga kiciyey mise haddana waxay tii qolkii saa u fiiriyeybu waxaa ku jiray tiri bahal wan ah oo intuu isku jabsaday saas u gaargaardinaya wanku muxuu ah oo haddana waxay tii kaba dheereer xidhan alla arintaa ubaa ku qosla kaba dheereer xidhanayd waxay tii wankii haddaan fiiriyo wuxuu yidhi wankan waxaan u keenay inaan cunug ugu wanqalano laakiin waxaan rabuu jiri inaan fiiriyo bal inaad heerkaaga si basiida ku daminayso iyo inaad cabaar wax fikirayso xoogaa wax xiirinayso cajaa'ib alqudrah waxay tii yaab shibbaa iska irbeed horta gabdho badan oo anugu hadda aan garanayo xataa ma aysa sugeen gaadhiga xaafadaya dib iigu celimaysa sugeen cunugeetisa usoo qaataan bay laawiga